gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamuud Xasan Salebaan Doob ayaa ka hadlay warbixin ku saabsaneyd musuqmaasuq ay dhawaan soo saareen gudida dabagalka hantida qaranka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland. Gudoomiye Maxamuud Xasan Salebaan Doob waxa uu ku eedeeyay inaanay soo saarin warbixin dhamaystiran gudida dabagalka hantida qaranku, waxaana uu sheegay in xildhibaan Naasir Cali Shire inuu ka soo horjeedo horumarka gobolka Togdheer. Sidoo kale gudoomiye Doob waxa uu difaacay dhismayaasha xabsiga weyn iyo wasaaradda hawlaha guud ee ku yaalo gobolka Togdheer, taasoo ay ka hirgelisay xukuumaddii hore. runtii aanu gobolka Togdheer saddex qodob baan maqlaayay oo uu taabtay saddexda qodob uu taabtay si runtii jeelka Burco waxaan u arkaa mashruuca koobaad ee gobolka Togdheer loo qabtay intuu jirayba inuu yahay waayo jeel qurux badan ayaa socda oo xataa laana shirkadda dibadda uga bixin oo ay wadadee oo dhamaystirayso qof shacab oo shaqaysanayo wax cad aanad ku haynin musuqmaasuq ku soo eedaysana oo aad ku cadeyn kari weydaana sax ma aban leeyahay wasaaradda waxaan ka leeyahay wasaarad kaliya oo December iyada jirta wasaarad December oo gobolka Togdheer indhuu qabanayaan gobolka Togdheer xafiiskiisa ayaa baabaa wax kala daayo Burco maag baabaan u arkaa xaqiiqan waxa baan u arkaa inaanu gobolada kale waxba ka sheegin Burco personal tag ku soo qaaday oo Burco u diiday jeelka iyo wasaaradda yar loo dhisay oo labadaba musuqmaasuq ku sheegay iyo in hanti lagu lunsaday waxaan kale oo arkaa Saad walaalkii Naasir waxa musuqmaasuq ugu weyn dalka lagu sheegay wasiirka walaalkii oo la leeyahay wuxuu samaystay dhiil uu tashay oo adduunyada doonayeen wax kaga soo qaato in jawaab ka samaystay baa la leeyahay oo xisbiyadu ka qayliyaan oo cid walba ka qaylisay ka dabagalkiisii muu keenintii oo ma oran kaana waxba ku maqan ma oran markaanu waxaan arkaa inuu ninun cid gaar iska maagayo inuu yahay baan arkaa laakiin si aan xukuumadii dabagal ku sameeynin Naasir sidii wax loo dabagalay inuu ka baydhay oo meel isaga bayd noqday waayo wasaaradihii baarista u baahnaa ee ugu tunka weynaa wasaaradii maaliyadda waxba kama sheegin wasiiradii joogay Samaale wax kama sheegin Samsam Cabdi Aadan wax kama sheegin Cali Xorxor wax kama sheegin oo dekada ugu ballaaran maxay ay toy berbera haystay waad fahansooma dadkii loo tirinayay hantida qaranka inay gacanta ku hayaan oo maamulaan hal qodob kuma soo eedayn xukuumadda inta dabagal lagu sameeyana waa sax intan muuse dabagal lagu sameeyaa waa sax tii riyaalaha wax ka qaldanayeen inay iyaga fadhiyay soo saaraan oo eedaynteeda keenaan waa sax hal qodob waa ku raacsan oo maqan yayba xataa laan uu maqan yayba waa roogii badda cagta ee dhalinyarada lagu talagalay sportka ku ciyaarto oo si runtii gobolka Togdheer lagu tacadiyay oo goboladii kale iyo degmooyinka badidooda la geeyay laakiin isaga kiisi uu la sheegay inuu yaalo meel magaalada dhexdeeda oo marfisho lagu qaylay in lagu badul qaylo iskaba yaalo ayaa xataa laan imanka wararku noo xaqiijinayaan hantidiisina la qaatay rooga aan lana dhigin taana dhaliisheeda waxa yeelanaya mas'uuliyiinta cidda gobolka mas'uulka uga baa dhaliisheeda yeelanaya ee xogaal ka noqon waayay ee dabagal waayay oo lambar 1 maayir ku yahay waayo waxa marka dawladdu ay soo iibiso ay gobolka soo gaarsiiso wasaaradda ciyaaraha ina daba gasho xaq baad u leedahay. hadalka gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Togdheer ayaa daba socda hadal dhawaan ka soo yeedhay xildhibaan Naasir Cali Shire oo ku soo bandhigay hanti ay lunsadeen qaybo kamid ah wasaaradihii hore ee xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaanyo. Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker, Telefoonkan caalamiga Ariel TV, magaalada Burco.